ninkaas dembiilaha ah axsaan yaa loo samaynin yaan la qabiilaynin yaan la waxaynin bikaas waa u jeedin gabadhan marka barnaamijkeeda la soo bandhigay kadib in masiibooyin badan wadanka ay ka dhaceen waxyaalaha ugu dambeeyay kiisaska ugu dambeeyay hadeertaan saddexda kiis oo xalay dhacday ilaa maanta dhacda ha loo qoos qaato haddii qof kasta cadaalad uu helo aan waxa aaminsanahay in kiis uu dhaceenin laakiin haddii cadaalad aysan jirin qof kasta wuxuu ku tashanaa in wadanka cadaalad uusan ka jirin wuxuu rabo iska sameynaa waxaan codsanaynaa oo mar walba ku celcelinaynaa oo shirkan jaraa'id loo qabtay gabadhannada inay cadaalad hesho warto saamaha waa inay cadaalad hesho laguna soo dhaweeyaa tiirka lana toogtaa biidnillaahi kariim intaasaan codsanaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddana waxaan kusoo halkan uga hadlaynaa oon tobanaynaa inaanan weli aanan helin cadaalada marka xaqiiqda laga hadlo waayo dhagar qabaha waa la soo qabtay oo keliya luul waxay faranjeerka ku jirtaa muddo maxay dhashay 8 bari ah ayaa maanta u tahay meedkeeda oo faranjeerka ku jira waxaan baaq u direynaa madaxweynaha dawladda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud mudane madaxweyne maantay dhacdadan xanuunka badan dabcan way ku soo gaartay waana soo faragelisay soo galitaanka soo gashay ayaa fududeysay laamaha amnigana inay dardar geliyaan in eedeysanaha la soo qabto waxaan rabnaa in xukunkiisa la dedejiyo waxaan rabnaa madaxweyne maadaama saxiixa ugu dambeeya ee fulinta aad leedahay adiguna inaad dedejiso halkan waa isbitaal Digfeer waxa ku sugaya meedka luul oo faranjeer ku jira madaxweyne wuxuu u xayiran yahay saxiixaaga markii hay'adaha amniga uu ka soo dhamaado baaritaankooda iyo holahooda ay dhameystaan garsoorka loo gudbiyo maxkamaddu ay fuliso xukunka uu mudan yahay oo heladii luul ilaa hadda ay taagan yihiin in qisaas waxaan ahayn uusan aabe Cabdilcasiis ka gorgortameenin in hay'adaha garsoorkana fuliyaan waajibaadka laga sugayo ee ah in eedeysanahaasi la xugmiyo madaxweyne adigana in saxiixaaga u xayiran yahay duugista luul Cabdilcasiis oo faranjeer ku jirta inaa adna dedejiso waa la isla duuga may anaga cafiis marabno hadaa la cafiya intaan furidku kuma jir lahayn gabadheena marra duuga lahayn waxaa diyaar u nahan inaan isla duugo hadalkan ka dambeeska wuxuu yahay in gabadheena aan la duugi doonin hadee 10 bari iyo 20 bari bil had ku soo dhawaad hadee noqoto xitaa in gabadheena aan la duugi doonin ilaa ninkaas tiirka laga geeyo maalinta tiirka la geeyo anaga gabadheena duugana labadoodna hal mar la isla wada duuga halaga joojiyo wararka beenawurka beenana oo banaanka la wareejinayo in gabadh maxaa la dhahaa ninka inuu la daaweeyo iyo inuu waalnaayo waxaas anaga ma noo soconaay anaga waxa u baahanaa cadaaladdan waxay tahay in anaga ninkaas waa nala soo qabtay in tiirka noo geeyo haddii tiirka noo geeyo gabadheena waa duuganayna ilaa laakiin gabadhaas oo ninkaas tiirka la geenin gabadhaas lama duuga ogeysiis farxad leh haddii aad joogtid dalalka Yurub xawaalada Galaxy Transfer waxa ay free ka dhigtay dhammaan lacagaha lagu diro Premier Wallet iyadoo ku gaaraysa daqiiqado gudahood ka faa'iideyso fursadan oo lacagaha ugu dir Premier Wallet ehelkaaga iyo dadka jecesha